بسم الله الرحمن الرحيم marka ugu horeysa waxaan salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto gaar ahaan dadweynaha reer Puntland meel kasta oo joogo saxaafadda dawladda Puntland iyo xukuumadeeda dadweynaheeda isimadeeda waxgaradkeeda waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaanka bacdi saxaafadda ana u yeeray waxaan rabaa laba qodob oo kooban oo midna yahay wacyigelin midna uu yahay jawaab celin midna uu yahay reer Puntland waxa laga doonayo saddexda qodob oo kooban waxaan rabnaa inaan ka hadlo haddii Ilaahay ka dhigo marka qodobka koowaad dadweynaha reer Puntland meel kasta ay joogaan dal iyo dibadba waxaa lagu wargelinayaa ama aan gaarsiinaynaa inay ciidamada Puntland oo geesiyiinta oo dhulkooda difaacaya inay gacan siiyaan marka koowaad dal iyo dibad meel kasta ay joogaan waana waajibaad saaran arintaas sababta qofku naftiisa iyo maalkiisa iyo sharaftiisa qofku inuu difaaco diinta islaamka oo gurigaaga haddii lagugu yimaado xoolahaaga lagugu yimaado sharaftaada lagugu yimaado diinta islaamka waxay ku ogoshay inaad difaacdinta laba arrimood baa marka diinta islaamka ay ka qabtaado haddii uu difaacana muxuu qofkaas mutaysanayaa hadduu dhinto hadduu difaaci waayana muxuu mutaysanayaa adduunku waa labo qofku hadduu naftiisa iyo sharaftiisa iyo xoolihiisa difaaci waayo wuxuu mutaysanayaa naar buu mutaysanayaa hadduu sharaftiisa iyo xoolihiisa difaacana jannu mutaysanaya horta halkaa jannaa dadka idinku jidhe dadow jannada qaata horta waa xilli jaanisoo maarta jira wey sababta reer Puntland cid weerari mayaan cid dalka qabsan mayaan cid abayuus garayn mayaan gobollo reer degan yihiin kuma socdaan laakiin gobolladoodii ayaa waxaa la rabaa qori in lagu qabsado anuu oran mayo Somaliland waxaan oranayaa maamulka jeegaanta oo yiri Soomaali ma rabno oo Soomaali dhulkaya ka shaqaysan mayso oo Soomaali qofkii ka yimaada airport ka soo degi mayo oo Soomaali ma doonayno nimanka yiri oo raba inay suuqaaga isticmaalaan dhulkaaga qabsadaan dad dhulkiisa degan oo Soomaaliya markay burburay dadku isir buu burburayeen gobollo kale inay qori ku qabsadaan raba waxay ku dad aan rabin inay Soomaaliya ka go'aan oranaya xoog baan kugu gooynaya oo xoog baan kugu qabsanaya oo marka qaarkood waliba ay hadlaan ay oranayaan dawladda Soomaaliya waxaan uga goonay dhibaatana loo geystay iyaguna hadda raba inay dad dhibaateeyaan oo xoog ku qabsadaan dad Soomaali doonayo aan Soomaali ka go'ay hadda Soomaali ka go'aysaan oo inaan Soomaali rabin waxa weeye gobolka togdheer Hargeysa iyo Berbera ayaa degan tahay dadka isirkaas leh ku ekaadayada qodobka labaad waxa weeye dadweynaha isu soconaya anagu haddaan Puntland cid kasta oo Soomaaliyeed meel kasta ay joogto waan soo dhaweynaynaa hadday dalka gudihiisa joogaana waa muwaadiniin Soomaaliyeed oo dalka gudihiisa joogta waa ka ganacsan karaan waa joogi karaan waa imaan karaan wax dhibaato oo ka jira ma jiro sida iyagu ay u hadlayaan ama baabuurta qaarkood ugala degayaan sida dadku ay sheegayaan arintooda ay meel hoose ay u marayso qodobkaas halkaa weeye qodobka labaad oo aan rabo inaan ka hadlo waxa ka mid ah hashi geela cuntada cabaaday geela waxaa la yiri hasha duqda ay meeshay fariisan jiray haddii halka yari fariisato waa cuntaa moogti cabaadkana waa ku kicisaa waqti jeegaantu waxa weeye hashi geela cuntada cabaaday weeye waxay leeyihiin wada hadal baa Puntland noo socda Puntland ma naqaano dawladda federaalka waa nala dagaalamaysa xagee bay la hadlayaan waxay haway la hadlayaan mise dad bay la hadlayaan dawlad federaal halkan ka dagaalami mayso mana joogto dad reer Puntland oo la soo weeraray oo si gardaraa loo soo weeraray oo dhulkoodii la haysto oo dagaal maaragtay si aan habaysnayn loo soo weeraray baa dadka reer Puntland iska difaacayaan cadow dawlad federaal haddii loo ordo haddii wax kale la sheegayo waxaan jirin qormi mayaan waxa jiraan qormi waxa kale ay leeyihiin wada hadal baa Puntland loo socdo
maxaa laga wada hadlayaa Puntland maxay ka wada hadlaysaa Soomaaliland kala hadlaysaa Sacad Cali Shiraan maqlayay oo le Puntland wada hadal baa noo socda dhulka Puntland cid lagala hadlayo iyo cid wada hadal uga socdo iyo cid laga wada hadli doono ma jiro ninkii wada hadal rabaa gurigiisa ha tago ka bacdi wixii laga wada hadlayaa laga wada hadlaa laakiin inta jeegaantu ay ku jiro gobolka Sool iyo meelaha la midka waxa wada hadala oo Puntland la yeelanaysa ma jiro dadka marka riya beena iyo arin diriima oo riya ayaan dadka loo sheegay wada hadal baa noo socday cimri baa laga dhiganayaa maanta ama dadka reer Puntland baa lagu khalkhalgelinayaa wada hadal baa socda waxa laga wada hadlayaa nin gurigiisa kala hadlamayo baalkii wareersan oo maartay aan waxba ogeyn oo dhiig xalaalaystay qodobka kale aan rabo in laga hadlo waxa weeye dagaalka hadda ka dhacay Tukaraq khasaare badan baa ka dhacday dhinac ka sabaanaatay haddii la sii joogana khasaare ka sii weyn baa dhacaysa haddii ilaahay ka dhigo haddayna degdeg uga bixin khasaarada mas'uuliyadeeda waxa qaadanaya adduun iyo aakhira qaadanaya cidii dagaalka geysatay oo weerarka iyo maartay hujuumka keentay oo weerarka bilowday ayaa geeyay baarinta qaadanaysa adduun iyo aakhira wixii halka ka dhacay dadka reer Sool oo muwaadiniinta oo Soomaali doonaya oo reer Puntland nin kale xoog baad igula go'aysa oo qori baan kugu goynaya oo qori baa igu raacaysa waxaas meelay adduunka ka jidho iyo meelay ka qormaysa ma jidho wixii damo dhacana mas'uuliyadeeda iyaga qaadanaya wixii hore u dhacayna mas'uuliyadeeda iyaga leh waxa weeye marka waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto Puntland waxa weeye dal nabad weeye dal ummadda Soomaaliyeed u siman tahay weeye cid laga cunsuriyeenaya ma jidho cid lagu dhibaateynayo ma jidho cid ka shaqeysan jiray hore uga shaqeysan jireen hore bay uga shaqeysanaysaa kuwa damo imaanayana iyaguna waa imaan karaan waa dhul furan laakiin jeegaanta iyo xukunkeeda waa la iska celinayaa ummadda reer Puntland way iska celinaysaa wixii ka yimaadana mas'uuliyadeeda iyaga dib u qaadanaya maalin aan maanta ahayn bayna garan doonaa waxa maartay daandaansiga foosh xun ay sameynayeen waxa ka soo gaaray iyo waxa loo geystay ay sheegi doonaan adeer dhulka iyaga annaga qaramo midoobay iiga cid kale cidna dhulka iyaga gorgorta kala gelimayno waxa weeye qaramada midoobay dhulna annaga dhulna nagama soo weerarin qaramo midoobayna dhul nagama haystaan waxa dhulka iyaga soo weeray waa jeegaan iyo niman Mooryaana waxa weeye qaramada midoobay cid kalena waxa wada hadal oo annagu ay leeyihiin dhulkiina jeegaan iyo maartay Mooryaana haysto cidna ka yeelimayno ha ka bixeen gobolka Sool dhulkooda ha tagay iyaga ku wada hadlayna wixii kale oo dhacay markaas arinta waxa weeye madaxda u sareysay waxa la ardayda hal laayo annagu arintaas hadda cidii maartay ama qof arday dilaysa ama qof muwaadin oo safara dhibaato u geysanaysa awalba way ku hadlayeen wixii ay ku hadlayeen oo ay ka rumeeyeen bay noqonaysaa iyadu baan u arkaa waqti arinta laakiin annaga waxa weeye dadka iyaga waxaan u sheegaynaa dadka Soomaaliyeed meel kasta ha joogeen Puntland inay xor u yihiin cidna ay ku dhibaateyn karin dhulkooda inuu yahay dhulka reer Puntland